komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah magaalada Boorama uga kala diray shaqaalihii gaadiidkii iyo waliba ciidamadii ka howlgali lahaa goobaha kala duwan ee maalinta beriya oo ah 28 bisha ay si rasmi uga bilaabi doonto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland. goobtani lagu kala dirayay gaadiidkii shaqaalihii iyo waliba howlwadeenadii ka howlgali lahaa goobaha codbixinta ayaa waxaa goobjoog ahaa afhayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Commissioner Cabdicasiis Xirsi Warsame maamulka gobolka Awdal iyo waliba mas'uuliyiin kale. ugu horeyn haddaba waxaa halkaasi ka hadlay oo la sii dardaarmay shaqaalaha kala duwan ee ka howlgali doona goobaha codbixinta Commissioner Cabdicasiis Xirsi Warsame waxaanu halkaasi ka sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta oo bisha December ay tahay 27 waxaanu halkan u joognaa inaanu kala dirno dhammaan gaadiidka sida shaqaalaha iyo agabka diiwaangelinta codbixiyaasha ee u kala baxaya dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Boorama. sida la wada socoteen gobolka Awdal waxa diiwaangelintu ay ka dhacaysaa 22 goobood 22 goobood 17 ka mid waxay ka baxsan yihiin magaalada Boorama 17 goobood oo ku kala yaala saddex degmo kale ee Lughaya Sayra iyo Baki saaka dhammaan halkan ay ka dhaqaaqayeen gaadiidkii iyagoo sida qalabkii diiwaangelintii sidoo kale waxay qaadayaan shaqaalihii diiwaangelinta sameynayay sidoo kale qaarkood waxay qaadayaan shaqaalihii kormeerka ee u qaabilsanaa wixii cilado farsamo yimaada inay xaliyaan dhammaan gaadiidkaasi hadda ay wada dhaqaaqayaan saaka. waxaan insha Allah rajaynaynaa in dhammaantoodba ay galabta ilaa caawa ay ku wada hooyan doonaan goobahoodii bari subaxdana 6 subaxnimo ay ka bilaabi doonaan shaqadii rasmiga ahayd ee diiwaangelinta. sidaas ayaan waxaan jecelahay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada ay shaqaalaha soo iman doonaan ee gaadiidkaasi ku soo wajahan yihiin inay dhalinyarada soo dhaweeyaan si qurux badan oo la shaqeeyaan dadkuna ay ka faa'iideystaan maalmaha loogu tala galay oo si wanaagsan oo degan oo xasiloon ay safafka u galaan isu diiwaan galiyaan sida iyo insha Allah howlgal fiican iyo insha Allah in arrimo khayr inoogu bilaabmaan. geestiisa barasabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro halkaasi ka hadlay ayaa dadweynaha goobaha loogu tagi doono waxa ugu baaqay inay la shaqeeyaan howlwadeenada komishanka doorashooyinka ay soo direen. waxaanu diyaar u nahay inaynu aanbabaxno goobihii ka baxsanaa degmada Boorame gobolka Soomaaliland iyo Awdal insha Allah shaqaale iyo ciidanba way idinku soo socdaan baan leeyahay dadweynaha ay ku wajahan gaadiidkaas. waxaanu idinku codsanaynaa inaad si wanaagsan u soo dhaweysaan lana shaqeysaan waqtiba haysataan cidhiidhiga badan iska ilaaliya muddo ay nala joogayaan waqtigii waa laynoo dheereeyay samirka aan ogaano waxaanu inagoo degan si wanaagsan hay noogu dhamaadaan. anu waxaan la dardaarmayaa darawalada gaadiidka wada shaqaale idin saaran habla idin saaran qarfaad maraysaan waa 17 goobood ka baxsanaa degmada Boorame marka inaad ka taxadirtaan wadidiina gaadiidka u fiirsataan aydan hareeraha eegin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabadqab idinku geeyo goobihiinii. isku soo duuba maalinta beriya ayaa guud ahaan 24 goobood oo gobolka Awdal waxa ka bilaabmi doonta diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland.